maanta waxaan joognaa anigu xaggan aan ka soconnaa Afrikada ciidanka nabadda waxaan u joognaa inaan ilaahay uu nabad nala qabto Soomaaliya si nabad u noqoto oo si dhulkooga nabadda ugu adkaystaan oo si yaro oo nolosho fiican ugu waaraan insha Allah biidnillaahi kariim waan rajaynaynaa intaan karayno anigu inaan qabanna ugu waajib Despite the pressure, despite the hostility of environment, we cherish our belief and our closeness to God. Furthermore, we are keeping peace here. It is even something very important for God because peace building is one of the requirements among the main important obligations of a believer.